run ahaan waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan hortiina isoo taago oo arko dadkaas run ahaan faraha badan oo maanta ka qalin jabinaya ama ka qalin bedelanaya jaamacadda. طبعا مبروك marka ugu horeysa waxaan leeyahay intiin oo dhan alf mabruuk. ilaahna waxaan ka rajaynayaa cilmiga aad barateen mid wax anfaco oo wax bedela inuu ka dhigo ayaan intaas uga mahadcelinayaa aan idinku ducaynayaa. waxaan mahad gaar u celinayaa Prime Ministerka ka soo qaybgalkiisa xoog gale iyo wasiirka iyo inta kale mas'uuliyiinta inala joogtana waa ku mahadsantihiin ka soo qaybgalkan. hawsha waa hawshiinii, jaamacadda waa jaamacaddiinii. inaad ka soo qayb gashaan ladikuma ammaanaya laakiin waa la idin mahadcelinayaa laanna waa meel aad qayb ka tihiin, meel hadda gaar aad ka tihiin ma aha. dadkiina qalin jabiyey iyo jaamacaadka madaxdeedii maanta ee meesha fadhido, run ahaan waxaan leeyahay cilmiga dadka la baraayo shuruudiisa in la xoojiyo 3 qodob baan ku soo koobayaa. cilmiga dadka barayno waxaa la rabaa adoonnimada inuu ruuxa ka xoreeyo. adoonnimada waxa ugu weyn inaad dad kale waxay keeneen kaliya madaxaaga geliso oodan adiguba lahaynba caqli kugu filan. saa daraadeed cilmigu markuu ruuxa mutacallimka ah markuu dad kale wixiisa kali celcelinayo caqliga ayaa laga adoonsaday. marka wuxuu noqonayaa ruux tabar daran oo meel iska raacsan kala buu noqonayaa. marka wax cusub ma keenayo. marka waxaa la rabaa cilmigu inuu inaga xoreeyo adoonnimada iyo dabadhilifnimada inuu inaga xoreeyo. qodobka koobaad waa kaas. kaa haddii la waayo cilmigu faa'iido ma laha. qaybta labaad cilmigaas baahida dadkeenna haysa oo dhulka qaniga aan ka tirsannahay ina baahi tirila. waxaa la rabaa cilmi inuu soo saaro dadkaas wax ku filan, cunto ku filan, daawo ku filan inuu soo saaraa la rabaa. oo xoogga aan leenahay iyo xoolaha aan leenahay inta la habeeyo runta si saxa loo sameeyo. saa daraadeed dhowrkii sanaba 100,000 iyo malaayiin neef oo xoolo ah ayaa dhimatay. maxaa jira cilmiga aan baranay xoolaheenna maynaan ku habaynin. waa ku farxay run ahaan markii aan Jijiga tegey oon arkay calaf la beeray oo la siinayo oo abaartii aan soo dhaafnay markay ugu yartahay 2 milyan 3 milyan neef oo adhi oo dhiman lahayd la siiyey oo neef geela $1 uu maalintii ku noolaan karo. waa ku soo farxay. saa daraadeed cilmigan waxaa la rabaa inuu cunto inagu filan soo saaro. qaybta saddexaad oo la raba cilmigu inuu xaqiijiyo waa inuu hoggaan soo saaro. haddii marka hoggaan uu soo saari waayo dibadaha maan ka tuugsanaynaa. haddii marka dadkii tacliinta ka soo shaqeeyey ay ku guuldarraysaan inay hoggaan soo saaraan waa nasiib darro weyn waaye. saa daraadeed cilmiga jaamacaadku bari waa inuu hoggaan soo saaro. waa inaan ku talagalno hoggaan in la soo saaro. dad baa inoo soo bilaabay. maxamuud axmed cali markii lagu magacaabayey meel wuxuu ka soo bilaabay hoose, laakiin inagu maarta jaariskaan haysano xad ma laha. intaa markii laga gudbo 3 shardi waxaan rabaa dadka qalin jabiye khayr la siiyo ama qalin bedel inaad intaa idinkuna madaxiina gelisaan.